dhacdooyinkan faraha badan oo maalmaha sida isdaba joogga ah uga dhacaya magaalada Muqdisho inay isweydiinayaan laga yaabaa runtii habeen hore iskooska siinay waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan annagoo weliba aan rabno inaan dadkeena dareensiino waa runtii arrin xanuun badan ay ahaaday dadkuna xanuujisa ayay ahaaday laakiin waxaad ogaatiin in shacabki sida uu danqanayo loola danqanayo habeen dhaweedna goobtii wax ka dhaceen 6 saac oo habeenimo ayaan tagnoon joognay shalay markii aan shaqo soo galnay ilaa iyo xal 5 saacna waxaan daba joognay dadkii falkaas geystaan daba taagnaynay in la soo qabtay haddii la soo qabta aaween xaggay ku xiran yihiin ituso itaabsiyaan naqanaa dhan hana la tuso markaasaan xabsidii ku jiraan xalay intaan mid walba kor tagnay ayaan 1 2 3 4 5 lahaynay ayaan lahayn taasna waxaan rabnay inaan dadkeena u muujino in intay wax ku dhacaan aan marba la iska dhaqaaqin ama dana aan la kala dana raacan sidaas la mid ah shalay Zobe ayaduna nin baabuur buruuf wato askartii la socotay ayaa xabad iska rideen nin bajaajlaa wax ku noqday ku dhaawacmay isla wasiirkii arrimaha dibadda ayaa la yiri ninkii kula socday oo xabadda ridaa la rabaa intuu gacanta ka soo qabtay ayuu xabsiga ku soo xiray saldhiga xamar jabaa isna shalay lagu soo xiray ninkaasiga 13 kamid ah habeen hore Siinaa iskooska Siinaa kuwii falka ka geystay ayaguna xabsiga ku jiraan ama booliis ahaado ama nabad sugid ahaado xabsiga ku wada jiraan ay ku xiran yihiin marka ala kulli xaal arintaas ayida ah waxyaabo badan oo sababi kara ayaa jiro wacyigelin fara badan loo baahan yahay waxyaabo badan oo sababayana way jiraan oo u baahan ka hortag waxa sidaas la mid ah aan baryahan ka shirayna gobolka Banaadir hadaan nahay sidaan ula dagaalami lahaynay muqaadaraad ciyaal weero iyo anshaxumada magaalada ka socoto kalaabada qaarkood ka socoto saan ula dagaalaminahay habeen dhaweed 7 saac oo habeenimo anigoo socdo ayaa waxaan dul tagay gabar Soomaaliyeed ee 15 jir ah ee maaragtay bajaaj laga tuuray jidka taalo ee la daroogayaan uga dul tagay markaan u tago weydiyo waxa la yiri faqabura lay qabto baalkii ku kacay baashay wadaadad waxaan shidi jirnay wixii ku kacay lagu yiri been waay soo ma garan ala kulli xal arintaasna waa hawl hortaalo sidaas la mid ah professorka wuxuu ka dhawaajiyay dadkii markaan wax weydiinay waxay u baahan yihiin inay wax doortaan xaq ay u leeyihiin annaga goladeega inaan dhisno ayaa waxay naga gooneed 2016 naga gooneed annagoo magacaawna guddiga arrimaha gudaha guddiga gobolka ee aan meel dejinay ee qaabka goladeega loo dhislay ka shaqeynayo ayaa doorashadii kale heer federaal lagu dhacday waxaan dhan laba xaajo weys xayeysiisay aan tan hormarino markaan hormarino meeshay nooga sheegday hadda waxaan naga goon hadii la yiraahdo qofku codkiisa cid uu rabo inuu ku doorto inaan gaarsiinaa naga goon hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa insha Allah howlaha noor yaalay kamid tahay oo fiishinkeena kamid tahay waxyaabahan aan bartilmaameedsanayno horumarka magaalada Muqdisho kaabayaasha dhaqaalaha bilicda magaalada iyo amniga iyo doorashada iyo muqaadaraadka la dagaalano ayaa kamid ah qorshaha noo degsan insha Allah istiraatiijiyadeyna waa maasantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajaynaynaa barnaamijka waa noo furan yahay ragga noo joogi doonana insha Allah waxaan rajaynaynaa ka qayb qaataan waana maasantiin macad kiritajna mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay ha guuleysto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh